iyagu indhaha mayna sukeen inta doorashada socotay inta cod kale tirinay indhaha mayna sukeen mayna fadhiisanin way kor taagnaa tribka hore la booyo moogta tribkan waxay dheen mari dage Allah hadago mar labaad hadii la idago anigaba alla way idilay way moogta tribka hore cirama la boobay illa cirra ka cod badnaay miyuu saxday mu wadu waxbaas ka hoos maray tribkan wuxuu u kor fadhiistay qabaalka huwa la wada kor taagaya imizuga dhigay صندوق وضع حاجة إمساك بيجرته ويكون واقع. كنت كدورشة تضبط وياه شن وحالها موس. لكن كنت لو قلنا واقعي. هتشويس ما تعمل كرت. من كي عايشك إن برخة. كل مال كوب صدي. إصلاح لنا السيحان. إنه عرّو قدام مدحوينية الله قري. الحمد لله بساقري. واضح. برخة بقى ساقري أوه بصدي وكوب صدي كرسي جنك. so 4.5 من هنا سدا waxna u qaybiyeen oo 4.5 waxa afar beelood oo weyn iyo mid yar kuwa yar yar waa shan Soomaa tulixaad soo nagu dhex jirto oo axmedo sheegay tulixaad waa beesha caalamka oo kuwan caadi xalana jooga kuwii xalana fadhiyay way la soo hadleen Muuse way u tacsiiyeen waxna ku yireen Samiriye ima kursiga Allah ka siiyo si fiican ku wareeji haddii aad isku daydo laakiin inaad wax isdaba mariso cirrow booski waad heshay aad heshiday isku day boogihii Muuse uu abuuray ninkii dhaylahay daweyn lahayn inaad tahay hana isku dayin argosinas cirrow qaado waliba dardaarankaas ni fiican weey Muuse tabari inay dhigta mooyaane Muuse tabari inay dhigta mooyaane wanakan sida loo sameeyay Ilaahay ma yaqaan waxa la sugayaa beelaha hoose xuraanaha ka helay ee isaaq dhaxdiisa inuu Muuse hadda hambaliyayaba oo la isla sugin natiijadii hore oo Muuse uu yiraahdo wixii dhacay way dhaceen hanjabaadii hore uu hanjabayay inuu hambaliyo ku xijisiyo oo dhawraalka cirrow hadda tiri masagaashan iyo 8 mayl xadkii dib u soo baxba adigu hore u gal Faysal iyo Cuud isla hadeen oo gebi ahaanba isla hadeen aabaha kalsoonida horta ninku aabaha kalsoonida yu waxaan ka yaabay kalsoonidiisa eraygu ku hadlay BBC-da eray taariikhda gali doona way kolkii u dambeysay cirraqdiiba waxa la yiri bal maxaa leedahay mas'uul waraysiga ku xiga ana madaxweynaha jamhuuriyadda adiga qaadi doonta insha Allah ugu daray war kulmiyada xad erideena inta kaga hada way galaacina iska daay kulmiye heestan baa u qaadina gobay daba u qaadina hasiimeed garaacina calanka kulmiye mid wato waan kaanagii laba ku kaadada waan meeyle calanka laba ku yar kaadada hal meeyle maxaadka ina loo dhiibo ku soo dhawow royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kuna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xog waran barnaamijka qaybtan haddii baa wada loo ogolaaday intay socoto waxaan ku falanqeyn doonaa ama aan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Somaliland oo ay socoto natiijada ama ay dhahdeen tirinta codadka waxaan eegi doonaa balilaa hadda maxaa xog ah oo laga hayaa doorashadii Somaliland ee arbacadii loo dareeray dadka reer Somaliland codkooda ay dhiibteen inkastoo wali guddiga doorashooyinka aysan ku dhawaaqeen haddana waxa jirta natiijooyin hordhac ah oo wararka soo baxaya ay sheegayaan sida ay u kala horeeyaan xisbiyada iyo ururada halkaasi ku tartamay waxaan eegi doonaa bal halka xaalka uu marayo cidda saadaashu ay sheegayso ama saadaashu cidda ay tahay in ay horeyso iyo bal xaalka sida uu yahay xilnimo ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta arrimahaas aan eegi doonaa dooyba wada loo ogolaaday inta barnaamijka uu socdo saaxiibka Maxamed Dhacayga fadhiya
isaga ayaa barnaamijka intuu socdo wax ku weydiin cadax xasuudo wandhawax doorashada Soomaaliland arbacadii baa loo dareeray haddana waxaa socota tirinta codadka xagee wax maraya tirinta codadku waa run arbacadii baa loo dareeray saa sheegayba qolada reer Soomaaliland oo qolo xagga dimuqraadiyadda iyo waxaan ku dhahay xadaarada dawliga ah iyo taqabaliga ah way iswaafajiyeen waxaa tartamayay qabiilo isgarab socda waan la isu awood sheegteen oo qabiilana way isbahaysteen qabiilkii saxani iyo in yar oo gaarina gaar bay noqotay saxani toori hore ciidanka su'aal waa gaar bay ahayd waa la isu awood sheegtay laakiin si nabad ay u dhacday meelaha qaar wada arkaysay wax yar oo laga sheegayo codadkii lama tirinin meeshan 20 baa loogu talagalay dadkina ilaa hadda saasay u taagan yihiin waa TikTok ma seexanin iyo mobilka haweenku gaarka u leeyihiin ma seexanin halays baa wuxuu ahaa nin reer magaal aan ka maqli jiray wala nin mobil haystay wax uu qori waa saas cidna ka daa oran mayso xir buu la gali wuxuu doon soo qori islaan mobil haysatay wax way duubi waxyaabo badan oo la duubay way jireen laakiin si guud doorashadu si aad u qurux badan bay u dhacday sidii ay doorashadu basbaaska u lahayd dadku mayna isugu soo wada bixin meel 40 kun oo cod laga sugay ilaa 20 kun oo cod laga hel ka soo baxeen ama ay ka codeeyeen meel 100 kun laga sugayna 30 baaba timid doorashadu sidii ay basbaaska u lahayd ee hodhodho iyo u kululayd macnaha ololihii u kululayd cod bixintii umayna kululayn intaasi waa inta waa tahay doorashadii markay dhamaatay codadkii waa la tirinayaa waa la tiriyay 9% xisbiyada wakiil baa u jooga xisbiyadu waxay gudbiyeen natiijo 60% ka badan wadarta codadka inuu xisbiga wadani helay oo madaxweyne Cirro uu helay oo sida madaxweyne ku noqonayo doorashadu waa isa saaran tahay mar haddii ay sidaa tahay oo Cirro uu sidaa ku helay guddiga doorashaduna waxay dhaheen waa been cod bixinta hordhacda iyo natiijada hordhac ee la baahiyay waa been lama anagu baahinin kuma jirno xagee laga helay baa marka taala xagee laga helay marka xagga laga helay natiijada hordhaca ee warbaahintii tabinayso ee dadkii oo dhan ay haystaan ee Cirro inuuba dabaaldega ku dhow yahay meel ku horreeyay qoladii kale kulmiyay uu ku dhow yahay meesha laga helay ku sheeg xagee laga helay xisbiga wadani wuxuu leeyahay xafiis warbaahineed aad u awood badan oo meel fadhiya xafiiska warbaahintu wuxuu isku xidhayaa sayje kasta goob doorasho kasta wakiilkii u joogay xogta uu keeno isku ceshanayaan inta guddiga doorashadu tirinaysa in ka badan bay iyaguna tirinayaan meesha xisbi kasta iyadoo guddiga doorashada ay si guud u tirinayaan codadkii xisbi kasta wuxuu tirsanaya cali waraab uu haystaa wixiisa hadda inuu haray wigi inuu haray meeshan 100 kun oo qof inay ka codaysaa la rabay haddaad adigu 80 kun oo qof hesho uma baahan natiijo kale inaad sugto meesha 80 baan helay baad leedahay waa tirsanaysaa qarraf kuwii dhaxaa qoranaya xisbigii wadani xisaabtuu tirsaday ay guddigii doorashaduna u tirisay 90% inuu madaxweyne noqon yay u badan tahay ifafaaladeedina waa la arkay codadkii tirintoodu way dhamaadeen Samir Siim baa la yiraahdaa waxa hadda haray Samir Siim waa imaan doonaa qolada isbedel doonka waxay aad uga cabsi qabeen Muuse inuu doorasho ku shubto waxa soo baxaysay in ay aad u ilaalinayeen codadka iyo dhaqaaqa way la socdeen iyaga balka waran qaabkay wax ma iyagu indhaha mayna isu keenin inta doorashada socotay inta codadka la tirinayay indhaha mayna isu keenin mayna fadhiisanin way kor taagnaa tribka hore la booy moogtay tribkan waxay yidheen mari dage Allah dago mar labaad hadii la idago anigaba alla way dilay way moogtay tribka hore Cirro ma la boobay illa Cirro ka cod badnaay miyuu saada mu wadu waxbaas ka hoos maray tribkan wuxuu u kor fadhiistay qabaalka waxaan malayn 3 kun oo gaari ku dhawaad oo u shaqeynaysa xisbiga wadani ya adduunka loo karfas ka iska rugada la orday ka qabaalka la orday ka booyada eriyay huwa la wada kor taagay imisu ka dhigay sanduuq wada xaga imisa ku jirta oo way ku dhawaaqeen guddiga doorashada toddobada uu yahay 5 waxa laha Muuse laakiin guddi lagu dhawaaqay waxa isma taamarin karto wala oo ilaa ay dhameeyeen
ninkii ah ay sheeg barqad kolku meel ku hubsaday ee isla xidheen saxiixeen ee inuu cirro gudoom madaxweyne yahay loo qoray alxamdulillah buu soo qoray waata barqad baa soo qoray oo hubsaday uu ku hubsaday kursiga ninka markii qabaaladooda ku jiray dadkii qabaaladooda saxan ku jiray nimankaas ma saxanine hay mooga muxuu soo qoray ma taqaanaa هذا فيسبوك هذا سو ميرسده موقت انت هورنا way mashquulsanaay ma wax soo qoray saacada laga bilaabo qaran baan u adeegaynaa tartan uu dhamaaday qaran baan u adeegaynaa wala saamaxaya soo wala saamaxaya maxaa erga maxuu wala jeedaa de waan sujuunay moogta hay no bal isku yiri wixii aan isu geysanay hadda wixii ka dambeeya caalamka la tartamayna inagu ma tartamaynaa ahla saamax waa afalla ama salaf wixii tagay tag faatama faata way waad ninkii la oran jiray mooga halka ma soo qoray waxay u eg tahay oo iska cadaatay inay nimankaasi dabaaldegeen intaas soo inta ma guddiga doorashada maxay ugu dhawaaqi lahayd ka dhigantay hadii xisbiyada ay natiijadii kala haystaan hadiiba sida hadda aad leedahay codadkii intii badan la tiriyay يعني doorashadii hore 7 maalmood bay qaataa baa la yiraahdaa natiijada lagu dhawaaqo tanna laftirkeedu inay de maalmo qaato waxyaabo 7 din bay qaadan baa leh hadii subax kale dhicin oo dhicin isbedelin hadii guddiga doorashadii guddiga doorashooyinka ayaba tiriyaan codka intii badnayd maxaa la sugayaa natiijada lagu dhawaaqo waxa la sugayaa ku sheegaya Musa loo tagi waxa la dhihi wax kasta oo dhinta waa laga samraa waxa weyn guushu ninba waa maalin maanta maalintaada haday noqon weyda walaalka cirrome maalintiisii noqotay walaalow samir soo hambalye qarankana maxaan ku dhahay saayasa wax deyn oo lagu leeyahay ma jirto laga daba iman mahayo ninaad waaxid ka argoosan mahayo isixayna laga argoosanin isaga la soo horta qancin cirra loo tagi cirro meeshii waad ku guuleysatay inaad ruux bini aadam deyn u raacsanaynin ninku ugu yaradkay aadan ku yaradkaynaynin in hawsha walaal adiguna noo saxiix inta doorashada iskaga dhawaaqayo waa in wax la kala saxiixdaa فيصل على ورابه ولا المساجد هذا قال حزبي كادبي كي كلا كادبي وين قرشياش عصو من لا سو ودا waxa haray marka ee todobada bari qaadanaya waxa weeyaan wada xaajoodka silaaxa ah ee afrikaanku una aqoon Soomaalidu oo taqaanay fiican ee la soo wadayo weey ee fariin adag ee uga timid beeshii caalamka beeshii lixaad ee Soomaaliya uga timid qolada Soomaaliland bay uga timid hay beeshii lixaad baa la dhahay hay وباش اللي حاده سو 4.5 مني نينو سدا waxna ugu qaybiyeen oo 4.5 waa afar beelood oo weyn iyo mid yar kuwa yar yar waa shan Soomaa tul xad soo nagu dhex jirto oo axmedo sheegay tul xad waa beesha caalamka oo ku aan xalana jooga maanta way qaaqawanayeen bayagoo mid ordaan arkay waad mesh dhaxdeedu waa meel weyn baan u malay waa magaaladan wala qaawiyo boombo yar bas ku soo reebeen shoo xilay ordaan baa jirta na TikTok meel kasta tagay wala soo duubay iyo loo yaraadeen wada qaqawan oo habarka ku jira iyo rag iyo dumar bas ay soo dhaxortay kuwii xalana fadhiyay way la soo hadleen hay Muuse way u tacsiiyeen hay waxna ku yireen samir iyo iima kursiga Allah kaasi hay si fiican ku wareeji waad hadii aad isku daydo laakiin inaad wax isdaba mariso meeshii martay Soomaaliland ala ko mariyo cirana warqad bay soo diray hay cirro booski waad heshay aad heshiday isku day boogihii Muuse uu abuuray ninkii dhaylahay daweyn lahayn aad tahay hana isku dayin argosinas sidaad Soomaali guud u midayn lahaydna wadadeedii qaad waad intaas ay ku yiri no cirro uu qaado waliba dadaarankaas ni fiican weey Muuse tabari inay dhigta mooyaane Muuse tabari inay dhigta mooyaane ونكن سيد لو سمي إلهي ما يفعل تبر محمد موسى قاركوا حقاركوا وعسكري مدح عليك وانا جيل جري جيل بوله جيل سعد وبدأ زود جيلنا سيد الشيخ أمال النور شيء ما ديرو حق شيطان كتير بكو جرته وعد عليك يقل السنوات صومالي ده إسدل كان وحمل شيء مركا يري حكوا شيء زجري فيها يجيل الشيطان لقى صوت laga soo dhacay waxa ka jiray wixii waagay laga sheegay sheekh Umar baan ka dhageystay ay dhagteeda ku maqlay wiil moogtay Sultan Ali Saaf wasaas dhagteeda kaga maqlay sheekh Umar wasaas ma waxba ku jira maada yar ya cunsurka kaga jirta markay maadadaas ku jirto
ninkan muuse ina waa geelay geel buu leeyahay oo caanihiisa dhamaa oo ad adaygan iyo qalafsanaantan iyo kakanaantan iyo dagaalkan iyo waxa ku jirta marka arwaax shaydaanaha ku jirta intaas iyo askarinimadii uu siyaad barataba baray yaa waxay ka dhigeen ninkii ruux geed aloobaad oo afka uu taagi oo cuqdadaysan oo inuu dhiigdaato uu raba oo inay adduunku saa isugu muruga raba inkastoo niman xoogaa ay ugu yidheen Somaliland isaga u fiican warka isaga hadda leedahay aniga kaasi waa aniga hore niman bay ugu yidheen nagala saar nimanku waxay ugu yidheen Muuse u fiican Somaliland koox ugu fiican yahay sabab idina waxay ugu yidheen niman hadda xaqiiqada u dhoway ahay waxay ugu yidheen Muuse go'aan buu leeyahay Soomaaliya ku daray haduu dhaho uu awoodaa dadka kalena arju dhaabo dheh una ku dari shib intay dhahay Somaliland tuna saa u daba ordi laakiin tabar uu leeyahay kuma dari karo hadiiba laga maqlo waa la dhiyo wala daba mariba isaga marka maadaama go'aan adag leeyahay uu awoodaa inuu mideeyo Soomaali iyo Soomaali weyn iyo Somaliland intaas waa amaan loo hayo aniga laftayda aadna maana u qaadanin waa si raag dhigay laakiin inay wax ka jiraan daradeed yaan meesha booga sheegaya moogta ninka waxba loo yaqaan intaas Muuse waa inta waxa la sugayaa beelaha hoose xuraanaha ka helay ee isaaq dhaxdiisa inuu Muuse hadda hambaliyayaba oo la isla sugin natiijadii hore oo Muuse uu yiraahdo wixii dhacay way dhaceen hanjabaadii hore uu hanjabayay inuu hambaliyo ku xijisiyo oo dhawalaalka cirrow hadda tiri masagaashan iyo 80 mayl xadkii dib u soo baxba adigu hore u gal badii nimanka ku leeshiyay waxad ka yeelay adduunkii oo dhan wada qabiyo ka ahan moogti waxa la yidhi nin dhintay xubbu maagana waasaas nin hadda dhintay xubba qabiyo ka ogow hadda kolo guur qabiyo ka yahay kolo guur qabiyo ka yahay kolo maxaan ku dhahay oo cilmi qabiyo ka yahay kolo kitaab xubba qabiyo ka waasaas nin dhintay xubbu maagana Muuse marka maalinta doorashadu qabatay xubba u qorshaysnaa geeska Afrika oo ka maaganaya Somaliland si kastaba ha ahaatee muna alfanin intaasi waa inta waxay sugaysay beelo inay yiraahdaan hambaliye xogta hambaliyeentiina way soo dhowdaan xisbiyadii yaa yimid xisbiyadan iyo laskooda maxaa cabsi baa jirtay xisbiyada qaar inay basaan dad doorashadan wax nacfi heli waayaan inay xisbinimada ay waayaan cabsidaas iyada xagee ka imanaysaa niyow horta xisbi yar baa haray sida hadda la sheegayo waa xisbi yar yaa haray oo xisbiga u cida faysal iyo u cid isla hareen oo gebi ahaanba isla hareen aabaha kalsoonida horta ninku aabaha kalsoonida yuu ahaa waxaan ka yaabay kalsoonidiisa eraygu ku hadlay BBC-da eray taariikhda geli doona wey kolkii u dambeysay cirraqdii baa waxaa la yidhi bal maxaad leedahay waas wuxuu waraysiga ku xiga anoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah adiga qaadi doonta insha Allah ugu daray ubadkoo yaraanta lagu bara asluubtiyo asaaskiya tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna carruurta ka caawinayaa casharada guriga ama homework hadduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale carruurta laga dhisayaa quraanka kariimka iyo culumta islaamiga عشان يعبدوا على الكداية وعروتنا الجارها إذن كعجبية وهي فاينتاس دير كلا حرير نمبر كشاشة دك موضة waxaan ka yaabay ninka kalsoonidiisa aad baan u fikiray muuqaalka markaan daawado sidoo uu ogyahay inuu soo baxayn waad saarnole wali kalsooni inta gaadha faysal kalsoonidiisa dadku wada yeelan lahaa ruux la deglaa ma jiro ruux walba cid iska deglaa wasaas
waraysiga ku xiga anuu madaxweynaha insha Allah tacaala yaadiga qaadimo wuxuuna og yahay inuu xisbiga xataa la hadhay xisbiga hadana xisbiga la hadhay see madaxweyne ku noqon marka waxa la leeyahay hadda saddex xisbi oo saddexduba isku fahmin haysto yaa soo baxaya waa saddexda oo mid uu ka yahay ninka la oran jiray Maxamed Kaahin uu ka yahay gudoomiye hay okay waa kulmiye hay wasiirka arrimaha gudaha ninka weyn ee Kaahin Muuse aan ku lahaa maalinta dhaweyd ee Muuse saaxiibkii ninkaas Faisal Cali Waraabe booskiisa fadhiisanaya waa dhawaaqi doona isagoo mucaarad oo boqorad wata oo gudoomiye xisbi ah da mucaarad hadda غيروا Somaliland inuu wadku uu meesha ka jiida mooyaane niman meel u socdo xilbaashaar Soomaali arkay yaa ka weyn Muuse ka weyn waa Muuse dhalinyaro geed ka boodi Muuse iyo ninkan baxabashaada ninkana weyn dadku marka wada sida baxabashaadku ma sharba isaga ma xabashaadta isaga yidhooyada xabashaada أنا واحد مودي إنه له أنا كل جبل ده شيء مكت قال ما يعرف وفاء ونريد نكن وين هذا حبشة بعد شيء فان هاي ضد ما يسوي يقول ورنيكم معه كل جيه قبل لما بدأ حبشة ده بحبشة على بحر بحبشة على هاي قبل كاس بجرا قبل كاس كم دي بحبشة على شو ومالها صو قصاقة مالها هي يقول بحبشة وات نكاس أبي تشوف سلام قال بتشوف مركني ما كان السومال لا ندأ وحبك ما حلو هذا رأيله ما تهتم كلام مكت دعوة جرت وضعك كي هذا الروح دو قارو ونوعك في الإندارش والله وقالين حاجة لكن كم جرت واسعي وأنت أصلا ما ماشي صوب حيسطي بقى حيسنس وضعك الرسول دو بالين هاي إلى هاي حلك حكوا أسطوران لين هاي موسى وحلنا هاي نيو جيلاكي تك أضاء ضي برنامج وحوي كريم برتان سوون ما نسوون رسم وحاولنا كرت ما لما حور جنسة لأن تاريخ وي Somaliland horta waxa way taariikhda wadada jecelahay oo wax fiican baan u rajeynayaa sanadii cagaha hadda la galeen badoodii way u badbaaday waxaan leeyahay oo kula dardaarmaya oromada raafa hay oo axmaarada raafa Muuse wuxuu keenay leeyiri nus milyan oroma hay oo uu rabay inay u codeeyaan oo abiye uu soo daad gureeyay abiye yaa u soo daad gureeyay oo ku yiri si badda aynay nooga xumaanin Muusow codadka kaararkiisa iyo ku soo bax wixii oo dhan isbedel doonkii baa isla jeeray ormadaas marka cirow oo Muuse keensaday lagu codeynayay iyo kuwa shaqeeya iyo kuwa gawaarida dhaqa iyo kuwa wixiga ah adoo islaamnimada iyo gobonimada Soomaaliyeed iyo dun macaanka feerinaya oo baad dilaynin reerkiini taga dhib ma ah ما يساق وحاجة الأوروبية كنا ولا كنا حرا حيستوي جوالك كنا غرق وهماية ما حد يكسر دونين مرك ما حد يكسر دونينه أنا قاعد أبرك نوجا مرين وخطر كلام ممكن حاجة أبرك لقى مرين دور جبت لما كان حاجة يسكر دوران رمني حاجة ده منك مرين ممكن لما كان يصنع فيها وضعك فرفر عليك بلوغ أهديد إذن كوا مع القبلات قاعد إسكاها اعتراف كين رات سنة حتى لا تتك Soomaali da meesha ku soo fasax Soomaalida Muqdisho amni darrada ku haysato hargeysaha camirtaan oo ha dhistaan oo dadka isliid dhisanaya hargeysa uga dhaw hargeysa waxa dhistaan iyo dadka qurbaha iyo meel kasta oo yaacaya cunsuriyada meesha ka saarnin xabxabo macaan baa tahay waa nin aad u degan oo aad u macaan laakiin markii akhdu ka badato oo dagaalama marka اللي قارسية أمريكا اللي قارسية لقى كرم ونروح لك إذا إلهي ساكو يريو جودو نهابا وكذا بالي يضد وقفت وقعد أنا تاجر سنة موقت أدي قاعد يقول بيستيرن ماله موقت أدي وكدوي بوحي أدي ونروح هذا كان صادر صدق وأنا طلب بقول فتح موقت مركب واقع سنت هالسبي نيجا لكنه ضل معايا على سكر راعي مركب نيجا أنت ترى سينيا رئيس مال لأنه حلاه وكل مية أحد إريديني أنت كجار ويقلعنا بس كده كل مية هاس طبعه قاعدنا قبل طبعه قاعدنا هسيم يتقرعنا علنك كل مية ميدو طاو وأنا كان نجي لا بقول كذا وأنا ما يدري علنك الله بقول يا كذا حلا ما يدري بحد كائن لودي علنك كل مية مصبح الله دحجير الله يكون قاعد مركا لا أنا لقى ميرو واسكور ما داس أكون قاعد
ادي اد بانو سلامي رئيس سومالان من النعبين هدي ان ير قلنا رئيس سومالان فيري dad baa wax laga yaabaa kolkan muuse iyo wax ka yar hadal inay yiraahdaan dadkani way yar nacbin meesha ma nacbin hambalyadan ku soo qayb galayna cir aan sarka tagayna oo aanu tawinayna hadii lagu xasuuso xasuuladii bismillah baa tagayna cir anaga wata wiil moogtay korneelkaas meesha uu ka baxo cir waan swadana hada baa tagayna insha Allah waa hagaag daawadayaal reer Soomaaliland waa hambalyeynaa taariikhda cajiibka ah ay sameeyeen iyo sida nabadda iyo xasiloonida ku dheehan ay codkooda u dhiibteen isla markaana ay doorashadaasi qaybta weyn ama ay uga qayb qaateen waxaan idin rajaynaynaa guur wacan hadduu Ilaahay yiraahdo iyo waliba natiijo ay dadka reer Soomaaliland oo dhan ku farxaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal bara lagu nasto bacadkiya kulaylaha barafkiya qaboobaha rabigeen baalmarsho ubad lagu barbaarsho bustaantiya beeruhu barbarkaaga yaalaan barashada tacliintuna baalahaga taal waxaad ka helaysaa shirkadda Beerlula shirkadda iibka dhulalka ee Beerlula waxa idiin haysaa fursad qaali ah oo aad ku helayso dhulkii aad degi lahayd kuna taala magaalada Namanga ee dalkani Kenya. Namanga waa magaalo xuduudeed nolosheedu jaban tahay, hawadeedu wacan tahay, waxbarashadeeduna tayo sarreysa caasimadda dalkani Kenya ee Nairobi aan ka fogeyn. Namanga waxaa degtay guri iyo geelba ku leh Soomaali fara badan. Haddaba ballanteenu waa shirkadda Beerlula. Fadlan kala xiriir wax faahfaahin ah taleefanada shaashada kaaga muuqda.